telefishinka Jarmalka ee Deutsche Welle ayaa wuxuu soo qoray sidaan qadar miyay maalgelisaa argagixisada Soomaaliya. qaraxii ismiidaamin wuxuu ahaa mid dan leh waxaana loola jeeday in imaaraadka looga saaro Soomaaliya. kaasi wuxuu ahaa qayb ka mid ah hadal telefoon ah oo sir ah oo u helay journalka New York Times. dadka wada hadlayay waxay ahaayeen safiirka Qatar u fadhiya Soomaaliya iyo nin ganacsada ah oo dalka Qatar u dhashay oo Khalifa al-Muhannadi la dhaho. nuxurka hadalka ayaa wuxuu ahaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay agagaarka maxkamadda Boosaaso agteeda. qaraxaasi waxaa sheegtay koox xag jir ah. 18 May 2019 Muhannadi wuxuu safiirka Qatar u qirtay in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen dad asxaabtooda ah. Muhannadi wuxuu hadalkaasi ku dhex tilmaamayaa inuu ka shaqeynayo inuu ka soo wareejiyo heshiisyada maalgelinta dekedda Boosaaso imaaraadka una soo wareejiyo Qatar. codkaasi sirta ah ee duuban wuxuu ka shafayaa qirashada Muhannadi u qirtay in kooxahaasi xag jirka ah ay Boosaaso u qarxiyeen si ay u xoojiyaan danaha Qatar. Febraayo 2019 xarakada Al-Shabaab waxay sheegatay inay dishay maamulaha shirkad Imaaraati ah oo ka shaqeynaya maamulidda dekedda Boosaaso. markii warkaasi u faafay xukuumadda Qatar waxay iska fogeysay Muhannadi waxayna sheegtay inay baaritaan ku sameynayso. bayaan ka soo baxay xukuumadda Qatar ayaa waxay ku sheegeen ninka eedda loo haysto ee Muhannadi inuusan ahayn nin la taliyo xukuumadda Qatar uusan matalin. laakiin warbixinta ayaa waxay sheegaysaa inuu Muhannadi ka agdhow yahay amiirka Qatar naftirkiisa marar badanna la safray ayna jiraan sawiro labadooda kulminaya. Qatar iyo Al-Shabaab. sanado ayay xukuumadda Soomaaliya ku tuhmaysay Qatar inay maalgeliso oo ay taageerto xarakada Al-Shabaab. kaasi wuxuu ahaa war sir ah oo ay Wikileaks heshay sanadkii 2009. tuhunka ayaa wuxuu ku sii jeedaa nin muwaadin ah oo dalka Qatar u dhashay oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan An-Nucaymi. samarkii ama xagaagii 2007 Nucaymi wuxuu dooxa ugu yeeray hogaamiyaal ka socda xarakada Al-Shabaab. wuxuu ku martiqaaday hotel qaali ah wuxuuna u soo jeediyay khudbooyin uu uga hadlayo faragelinta reer galbeedka ee Soomaaliya. 2013 waxay ku tilmaamtay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka Nucaymi inuu yahay argagixiso caalami ah waxayna ku soo rogtay cunaqabateyno. waxaa Nucaymi lagu tuhmayaa inuu maamulo shabakad maalgeliso ururada taabacsan Al-Qaacida oo ay ka mid tahay xarakada Al-Shabaab. sidaas waxaa dhahay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka iyo qaramada midoobay. 2012 Nucaymi wuxuu xarakada Al-Shabaab bil walba u diri jiray lacag gaaraysa $250,000. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa sidaas tiri. July 2017 ayay Qatar u joojiyeen Nucaymi sabab la xiriirta urur karaama lahaa oo uu aasaasay. mas'uul amniga Qatar ka shaqeeya ayaa sheegay in tilaabadaasi ay ka dambeysay cadaadis ay Mareykanka saareen Qatar kadib. muuqaalkan waxaa iska leh telefishinka Deutsche Welle oo waxay soo daayeen saacado ka hor. waxaana idin tarjumay saaxiibkiin Axmed Kediye. fikradihiina hoos ku soo qora sidoo kalena asxaabtiina la wadaaga.